لا شك أن محمدًا خير الورى ريق الكرام ونخبة الأعيان. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موضوع aynu barnaamijkan kaga hadlaynaa waa dajaal iyo dameerkiisa. dadka muslimiinta ah ee maanta nool badankoodu qiimo badan ma siiyaan fahamka axaadiista la xidhiidha fidmada dajaal, yaajuuj iyo maajuuj iyo calaamadaha saacadda ee wakhtiga aakhira zamanka. waxay u haystaan wax fog oo imanaya wakti yar ka hor intaan qiyaamuhu aanu dhicin. marka iskuma howlaan. culimmada wax yar ayay ka maqlaan iyaga oo ka hadlaya, waayo culimmadu waxay u haystaan sidoo kale mawaadiic muhiim ah inaanay ahayn. sidoo kalena waxay u haystaan in wakhtiga imaatinkoodu uu fog yahay. laakiin haddii aynu eegno culammadii hore ee salafka, fahamka iyo isgaarsiinta axaadiistan la xidhiidha dajaal waxay siin jireen qiimo aada u weyn. waxay ka qoreen kutub fara badan si ay muslimiinta uga digaan khatarta fidmada dajaal, ilaa xad ay ku taliyeen in lagu dhigo madrasadaha waxa laga barto si caruurtu yaraan wax uga fahmaan, si ay iyaguna ugu sii digaan da-da ka dambeysa. waxaa ibnu cabaas alla raaliha ka noqde uu ka wariyey rasuulka sala allahu calayhi wasalam inuu duco bari jiray asxaabta inay alle ka magan galaan dajaal. sida uu u baro ducadaa wuxuu u bari jiray sida uu u baro suurad qur-aanka ka mid ah oo odhan jiray ku ducaysta in alla idinka nabadgeliyo cadaabta jahanaba, cadaabta qabriga, fidmada dajaal iyo fidmada nolosha iyo geerida. waxaa ibnu cabaas yidhi ducadu waa tan: allaahuma inii acuudu bika min cadaabi jahannama وأعوذ بك من عذاب القبر وأعوذ بك من فتنة المسيح الدجال وأعوذ بك من فتنة المحيا والممات. xadiis kale waxaa rasuulku yidhi ma jiro nebi aan ummaddiisa uga digin
fidmada dajaal. xadiiska hore waxaa weeye waa saxiixa muslim. xadiiska kalena rasuulku alayhi salaatu wasalaam wuxuu yihi maa min nabiyin ilaa waqad andara ummatahu alacwar alkadaab. xadiiskani waxa weeye saxiixa muslim weeye. axaadiistani waxay inoo muujinayaan in fidmada dajaal tahay khatar iyo imtixaan aada u weyn oo u baahan in si sax ah loo fahmo, allena muxuu ahaa laga magan galo. waxaase muhim ah in la fahmo in rasuulku sala allahu calayhi wasalam dajaal uu ku arkay manaam, inuu riyo ku arkay, waana in la ta'wiiliyo, waa in la ta'wiiliyo oo la fasiro weeye. sidoo kale axaadiista rasuulkeenu sala allahu calayhi wasalam inooga warramay yaajuuj iyo maajuuj iyo calaamadaha kale ee aakhiri zamanka, dhammaan wuxuu ku arkay kashaf ama manaam riyo, oo ay tahay in la fasiro si loo fahmo macnaha ay axaadiistu xambaarsan yihiin. hase ahaatee culamada qaar baa u qaata u haysta axaadiista in daahir ahaan waxaan ujeedaa in fasir la-aan loo qaato oo aan la sharxin. masalan tusaale ahaan dajaal oo kale waxay u haystaa nin dheer oo cawaran oo daruuraha madaxa la dhaafayo. marka axaadiistii rasuulku calayhi salaatu wasalaam uu riyooyinka iyo kashafka ku arkay haddii caynkooda loo qaato oo la yidhahdo dajaal waa nin dheer oo cawaran oo daruuraha madaxa la dhaafaya, waxay markaa yani waxay noqonayaan khayaal bay noqonayaan iyo dhalanteed yani fasirkan lagu fasiraya sidan loo la rabo maxaa in loo sharxaa waxay noqonaysaa wax khayaal ah oo aan abad dhici doonin. masalan dajaal waxa rasuul ku arkay manaam isaga oo kacbada dawaafaya, yani dajaal iyo nabi ciise oo isdaba socda, nabi ciise oo kacbada dawaafaya, dajaalna uu daba socdo nabi ciise ayaa rasuulku manaam ku arkay. sidee dajaal uu kacbada u dawaafaya? miyuu islaamay? waxay ku tusaysaa in axaadiistu macano xambaarsan yihiin, tahay in la fahmo, tahay in lagu fasiro si qur-aanka waafaqsan. xadiiska rasuulku ku arkay dajaal oo daba socda nabi ciise kacbada waxa weeye saxiix bukhaari, kitaab axaadiis alambiyaa, ra-aytu ciisa wa muusa wa ibraahiima. xadiiska eeg waxaad arki doontaa dajaal oo daba socda nabi ciise. marka waxay noqonaysaa in manaamka la fasiro, waayo marna rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu inoo sheegay in dajaal nin dheer oo cawaran yahay, halkanna waa qof ku dawaafaya oo kacbadii ku dawaafaya, ku wareegaya. marka aan isla eegno waa kuma dajaal. dajaal wuxuu ka mid yahay calaamadaha waaweyn ee saacadda. marka dajaal yimaado waxaa ku xogay imanaya ee soo degaya waa nabi ciise, waayo nabi ciise ayaa dili doona dajaal. si aynu u fahamno marka dajaal waktiga uu imanayo, sifooyinka uu la imanayo ee lagu garan karo, duruufaha iyo xaaladda waktiga uu imanayo, aan axaadiista rasuulka sala allahu calayhi wasalam u noqono. ta kale aan isku dayno inaan fahamno macnaha ay xambaarsan yihiin axaadiistu. waxaa rasuulku sala allahu calayhi wasalam axaadiis inoogu sheegay
oo si buuxda inoogu tilmaamay dajaal si aynu u garanno isagoo dhinac walba inaga tusay waa in marka aynu axaadiistoo dhan isla eegno si aynu u garanno dajaal waa kuma dajaal si aynu uga badbaadno fidmadiisa aan isla eegno markaa 14 sifo oo rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu ku tilmaamay dajaal ta u horeysa inuu laayahay isha midigta yani wuxuu ka cawaran yahay wuxuu laayahay isha midigta oo camba qaadhay u eeg isha bidixduna waa fayowdahay axaadiista qaar rasuulku wuxuu noo sheegay inuu ku xidhan yahay silsilad meel kiniisada gudaheeda waxaa rasuulku inoo sheegay halkaa labada indhood dhexdooda wejiga inay kaga qoran tahay kafara in laga akhristo 10 aayadood ee suuratulkahf iyo 10 u dambeeya si looga nabad galo in doodi dhex mari doonto dajaal iyo muslimiinta in uu dhulka amri doono si uu macdantiisa iyo kunuustiisa iyo khayraadkiisa u soo saaro khayraadkii dhulku uu soo saarayna sida shinida ay dajaal u dabageli doonaan inuu la iman doono janno iyo cadaab jannadiisuna tahay cadaab cadaabtiisuna ay tahay janno inuu qof dili oo intuu laba u kala jaro misana uu dib qofkii isugu celin oo qofkii qosliya muxuu ahaa u iman doono maxaa dajaal inuu cirka amri inuu roob keeno inuu dhulka amri inuu beermo in ciidankiisa 70,000 oo yahuud ay ka mid yihiin in dumar muuqaalkoodu ragga u eeg yahay iyo rag muuqaalkoodu dumarka u eeg yahay ay ka mid yihiin ciidanka dajaal in rasuulku waa tiimka hadda idiin sheegayey ku arkay dajaal oo ku wareegaya kacbada isla markaana uu daba socdo nabi ciise tilmaanta 14 waxa weeye inuu wato dameer dab cunaya dheereeya sida dabaysha qoraxda uga dheereeya qoraxdhaca gudihiisa if ka baxayo dhulka maraya badda maraya oo aan degayn daruuraha muxuu ahaa dusha ka maraya labadiisa dhegood dhegtiiba ay muxuu ahaa 70 muxuu ahaa dhudhun ay tahay labadiisa dhegood ay isu jiraan 70 baac عامشة 70 dhudhun lug markuu dhigo bariga dameerkaasi lugta kale wuxuu dhigayaa markuu lug dhigo muxuu ahaa bariga lugta kale wuxuu dhigayaa galbeedka waxa uu sii deynayaa dameerkaasi buuro qiiqa aan isla eegna marka 14 sifo ah hadda muxuu ahaa idiin sheegay bal sida muxuu ahaa macnaha la aynu ka fahmi karno rasuulku wuxuu cawarnaanta إن الله ليس بأعور ألا إن المسيح الدجال أعور العين اليمنى كأن عينه عنبة ضافية وحوي دجال وحو كعورين إشي مدق وسي عن بمحوها قارئ أو كله أيو يكتاي رسولك سيدان صوت شاقنين دجال وحو كأركي منام واريو مركا منام كلا فسير أيو إيش مديك وحلو معناها لو فسرها وحي دين أخلاقه وناقة حشوطة إيو الله كبق إيش بدحنا وحلو معناها لو فسرها وحي الدنيا لحريرة وحوهرية أي تهاي لو قرت الدجال وقف أم وقرون علمي الدين تا يا الله كبق كمرا
diinta ay haystaana ay baadil tahay waa isha midig weeye. isha bidixna waxaa lagu fasiraa sidan hadda aan sheegay wixii cilmi adduunyo ee la xidhiidha sida sayniska iyo cilmiyada kale ee maadiga ah. dajaal marka waa quruun waa dad cilmiga maadiga ah culumta kala duwan ee daraasadda abuurka alle ku xeel dheer. waa isha bidix ee uu wax ka arko ee fayow. dajaal marka aada xadiiskan eegto fahamkiisa ma aha qof dheer oo il cawaran oo daruuraha madaxa la dhaafaya ma aha. haddii daruuraha madaxa la dhaafayo dadka dhulka joogaa sidee ba ishiisa u arkaya? marka waad arkaysaa inay khuraafaad tahay in lagu fasiro dajaal inuu yahay qof dheer oo daruuraha muxuu ahaa madaxa la dhaafaya. aan sifooyinka kala eegno, rasuulku wuxuu arkay dajaal isagoo ku xirxiran kiniisad gudaheed. tan macnaheedu waxa weeye in dajaal yahay xagga diinta wadaadada kiniisadda, waa wadaadada masiixiyiinta ah weeye, kuwaas oo kiniisadda ka soo bixi doono waktiga dajaal adduunka uu qabsan doono. waayo waa taliyi janno iyo cadaab buu samaysanayaa oo awood kayra caadi ayaa magaranaysa ilaahay siin doonaa. markan baa wadaadadu ay ka soo baxayaan kiniisadda iyana waxay fidin doonaan caqiidadan baadilka ee masiixiyadda. laakiin ilaa inta dajaal adduunka uu iskala bixinayo adduunka uu qabsanayo waxay ku jiraan kiniisadda. marka dajaal soo baxay adduunka uu qabsanayo markan weeye markay soo raacayaan oo iyana dacwadan muxuu ahaa masiixiyadda iyo magaranaysaa muxuu ahaa nabi ciise inuu yahay in ilaah ee adduunka meel walba gaarsiinayaan. waxaa kale axaadiis laynoogu sheegay inay wejiga ka qoran tahay kafara oo macnaheedu yahay waa gaal. taas oo qof wax qora iyo qof aan wax qorin labaduba ay akhriyi karaan. xadiiskan waa saxiix muslim weeye. waxaa wariyey anas binu malik wuxuu yihi qaala rasuulu llahi sala allahu alayhi wasalam ما من نبي إلا وقد أنذر أمته الأعور الكذاب ألا إنه أعور وإن ربكم ليس بأعور مكتوب بين عينيه كفر وقال وي. dajaal wuxuu dadka ugu yeerayaa waa dacwo baadil ah, waa masiixiyadda in nabi ciise yahay ina ilaah. qof kasta oo muslim ahi marka waa arki karaa in masiixiyadda dajaal ugu yeerayaa tahay baadil, waa wax iska cad, waa gaalnimo iska cad, sidii wejiga ay kaga qoran tahay kafara oo kale. yani waxay uma baahna qofku inuu wax akhriyo ama uu aqoon leeyahay inuu fahmo dacwadan dajaal ugu yeeraye ee ah nabi ciise waa in ilaah inay baadil tahay. marka waxa weeye waa gaalnimo iska cad weeye. taas weeye macnaheedu marka uu rasuulku sala allahu alayhi wasalam yidhi qof kastaa wuu akhriyi karaa in wejiga ay kaga qoran tahay kafara. waa gaalnimo iska cad weeye. marka uma baahna qofku inuu wax qoro iyo inaan qorin. waxaa rasuulku sala allahu alayhi wasalam ina amray in laga akhriso 10 aayadood ee hore iyo 10 dambe ee suuratulkahf. tobanka aayadood ee hore iyo 10 dambe waxay ka hadlayaan masiixiyadda. waxaa ka mid a aayadaha أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وينذر الذين قالوا اتخذ الله ولدا ما لهم به من علم ولا لآبائهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. وسورة الكهف وآيات كخورية طبنك أي كمتهاي طبنك الضنبنا وحكام ذا أفحسب الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم أفحسب الذين كفروا أن يتخذوا عبادي من دوني أولياء إنا أعتدنا جهنم للكافرين نزلا. marka labadan 10 aayadood ee hore iyo 10 dambe
waxay ka hadlayaan qolooyinka qoomka u qaatay nebi ciise u qaatay muxuu ahaa inuu yahay inuu ilaah yahay marka waa masiixiyiinta ayay muxuu ahaa suuratul-kahf 10keeda hore iyo 10keeda dambe ay muxuu ahaa ay ka hadlaysaa 10ka dambe gaar ahaan waxa weeye cilmiga maadiga ay gaareen ayaa iyana muxuu ahaa aayaddu ay tilmaamaysaa tobanka dambe waxaa ka mid ah الذين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا وإيش بدحه دجال وي يعني ليش ميدقنا ولا يا وكانت كي يقول لي كنيسة إيام مقارنة النبي عيسى إنه يها إلى إيش تصوري إيش بدحنا وكان هوها إلهي وطن إلهي وليه الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا حوي وكل ما awoodooda dhan isugu geeyey adduunyo oo aakhire ilaawey markaa suuratul-kahfna rasuulku calayhi salaatu wasalaam 10ka aayadood ee hore iyo 10ka dambe ee uu ina yidhi ka akhrista waxay inoo tilmaamayaan in dajaal yahay dadyow diintoodu ay tahay muxuu ahaa masiixi kristaan ay tahay rasuulku waxa uu inoo sheegay in dood dhex mari doonto dajaal iyo muslimiinta rasuulku wuxuu in yakhruju ana fiikum fa ana xajujuhu duunakum hadduu soo baxo anaa intayn la joogo anaa la doodi doona marka nabi ciise yimaadana rasuulku calayhi salaatu wasalaam wuxuu yaksuru saliiba wuxuu burin doonaa caqiidada masiixiyadda rasuulku wuxuu inoo sheegay inuu dhul cidla ah soo mari doono dajaal oo odhan doono soo saar khasindaada iyo macdantaada وصحيح مسلم ويا حديث كانوا رسولك يمر بالخريبة فيقول لها أخرجي كنوزك فتتبعه كنوزها كيعاصيب النحل حديث كانوا حويه إن دجال أود علمي أوليه xagga muxuu ahaa technology-ga iyo xagga wax soo saarka waxa weeye macdanta iyo khasnadaha dhulka iyo muxuu ahaa iyo khayraadka dhulka waxaas oo dhan buu awood u leeyahay inuu soo saaro marka jannada iyo cadaabta uu samaysanaya waxa weeye khayraadkii adduunka oo dhan buu gacanta ku haystaa marka janno iyo cadaabta uu samaysanaya waxa weeye dadka wixii yeela ee dacwadiisa baadilka ay yeela waxaan khayraadkan uu haysto ayuu wax ka siinaya oo jannuu gelinaya laakiin cadaaba dadka wixii diidana wuxuuna qabataynayaa oo waxa weeye waa cadaabtiisa laakiin dhab ahaan janno ah waxaa kale ka mid a siyaabaha rasuulku sala allahu calayhi wasalam uu inoogu tilmaamay dajaal in uu qof kala goyn doono misna dib isugu celin doono marka hore qof dhintay ma soo noqdo taas waxa weeye horey uga soo hadalnay marka qur-aanka la raaco qofka hadduu dhinto ma soo noqdo marka muxuu yahay macnaha xadiiska qof buu kala goynayaayo misna uu dib isugu celinaya waxa weeye culammadu waxay ku fasireen in dajaalo iman doono cilmiga qaliinka qofku waxa weeye inta uu camaliyadda qaliinka ku jiro waa qof suuxsan weeye waa sidii qof dhintay oo kale weeye laakiin qofka markay ay googooyaan ee wixii magaranaysaa muxuu ahaa camaliyadda ay u dhammaato qaliinka ugu dhammaado ee ay dib muxuu ahaa qofkii la isugu talo ee qofku soo miiraabo ee caafimaadkiisa u soo noqdo ayaa xadiiska wuxuu leeyahay qofkii oo faraxsan baa markaas soo u imanaya dajaal dajaal marka waa quruun waa ummad awood u leh dad awood u leh intay qof qalaan misna dib isugu toli kara waqtigii rasuulka sala allahu calayhi wasalam cilmiga qaliinku ma jirin laakiin ma aha intuu qof dilo qofkii oo dhintay
inuu soo nooleynayo taas waxa weeye ma waafaqsan qur-aanka kariimka waxaa ka mid a muxuu ahaa tilmaamaha dajaal inuu cirka amri doono inuu roob soo shubo dhulka amri doono inuu beermo taasina waxa weeye aqoontiisa muxuu ahaa maadiga ah xagga wax soo saarka waxaa kale xadiista la inoogu sheegay in 70,000 ay ka mid yihiin ciidanka muxuu ahaa dajaal marka 70,000 waxay ku tusaysaa isku xidhnaanta dajaal iyo yahuudda in uu taageeri doono oo uu gacan siin doono inay ku soo noqdaan muxuu ahaa waddanka falastiin ku soo noqdaan gumaystaan marka 70,000 ee yahuudda ee ka mid ah ciidanka dajaal waxay ku tusaysaa in yahuudda iyo dajaal ay isku xidhan yihiin waa qurumo ay iskaashanayaan yahuudi weeye inuu kacbada ku wareegayay dajaal waxa culammadu ku fasireen waxa weeye dajaal ma islaami doono oo yani waxa weeye dajaal baa kacbada ku wareegaya macnaheed waxa weeye tuuga iyo ninka qofka guriga ilaalinaya iyo tuugu labadu waxay ku wareegaan guriga tuugana wuxuu ugu wareegayaa inuu meel dagan sahansado ka ilaalinayana wuxuu ugu wareegaya inuu ka ilaaliyo marka dajaal waa cadowga islaamka waa sababta rasuulku ku arkay sala allahu calayhi wasalam isagoo kacbada ku wareegaya nabi ciisena wuxuu ugu wareegayaa kacbada inuu ka ilaaliyo oo ka difaaco dajaal diinta islaamka haddaan soo koobno dajaal wuxuu ka cawaran yahay isha midig wejiga waxaa kaga qoran kafara silsilad buu ku xidhan yahay muxuu ahaa waadada muxuu ahaa kiniisadda muxuu ahaa marka dajaal soo baxo iyana soo bixi doona awood qeyr caadi ay ilaahay siiyey oo waqti ka cirka amraya dhulka wixii khasnada iyo magaranaysaa macdan iyo khayraad ku jira la soo baxaya waa kaa jannada iyo cadaabta samaysanaya dadka wixii yeelana jannadiisa gelinaya wixii diidana cadaabtiisa gelinaya marka haddaad u fiirsato dajaal weliba maynu gelin dameerkiisa markaynu u galno waxay noo sii caddaanaysaa ka uu dajaal yahay laakiin intan imka aynu ka soo hadalnay markaad eegto yani 14 sifo inuu ka aradan yahay inuu laaya isha midigta oo uu dacwo baadila oo masiixiyada uu wado dadka ugu yeerayo inuu awood muxuu ahaa maadi ah leeyahay oo cirka iyo dhulkaba magaranaysaa muxuu ahaa uu sidii uu xukumo oo kale yani awood uu leeyahay inuu beero magaranaysaa muxuu ahaa uu magaranaysaa muxuu ahaa inuu dhulka beero inuu dhulka kala soo baxo wixii khayraad ku jira hantida bacdama isagu hantida uu gacanta ku hayo dadka wixii yeelana uu wax ka siinayo wixii diidana uu cuna qabateynayo waxaad arkaysaa markaa dajaal inaanu qof kaliya ahayn dajaal waxa weeye waa dadyooga reer galbeedka ah ee masiixiyaddu u tahay diinta gaar ahaan waa wadaadadooda kiniisadda dacwada baatilka ah in nebi ciise yahay ina ilaah adduunka raba inay ku faafiyaan marka dajaal qof dheer oo cawaran maaha waa dadkan aynu la joogno ee reer galbeedka ah waa dadkan aynu la joogno ee adduunka maanta iyagu xukuma waa dadkan diintooda ay tahay masiixiyadda nebi ciise markuu soo degana
wuxuu burinayaa waa caqiidadan baatilka ee masiixiyadda. marka haddii alla ka dhigo barnaamijka dambe ayaynu waxoogaana aynu kasii sheegi doonaa dajaal. waxa kaloo muxuu ahaa aan barnaamijka dambe aan ka hadli doonaa dameerka uu wato dajaal. waayo waxaa yidhi dameer buu wataa uu adduunka o dhan ku qabsanayo. dameer cirka maraya oo dhulka maraya oo badda gelaya ayuu wataa. marka sifooyinka dameerka haddii alla ka dhigo ayaynu barnaamijka dambe kaga hadli doonaa. wasalaamu calaykum waraxmat ullaahi wabarakaatu. يا رب صل على نبيك دائما في هذه الدنيا وبعث ثاني.